dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga waxay markaan diyaariyeen ciidamo gaar ah oo la sheegay in ay ka shaqeyn doonaan sugidda amniga xuduudaha Soomaaliya ay la wadaagto dalalka Itoobiya iyo Kenya. Ciidamadan oo tiradooda ilaa hadda aan la shaacin inta ay gaarsiisan yihiin ayaa la tilmaamay in maalmihii u dambeeyay dowladda federaalka Soomaaliya ay tababar ugu keenaysay dalka dibadiisa. habeenadii la soo dhaafay garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho waxaa laga dejiyay diyaarado ay la socdeen dhalinyaro dalka dibadiisa lagu soo tababaray kuwaas oo si qaas ah tababarkooda uu quseeyo adkeynta amniga iyo in ay la tacaamulaan xaalad walba oo ka imaata dhanka iyo wadalka dariska la Soomaaliya kuwaas oo doonaya in ay fargelin siyaasadeed Soomaaliya ku yeeshaan xilliga loo yaqaan waqtiga kala guurka. dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay qaaday tallaab xooggan oo arintaas ugu gaashaamanayso iyadoona ay kaashanayso dowladaha Turkiga, Masar iyo kuwa kale oo Sacuudiga ka mid yahay. waxay ciidamadaasi adeegsan doonaan diyaaradaha Soomaaliya loo soo iibiyay gaadiidka casriga iyo sidoo kale qalab kale oo la sheegay in uu yahay mid gaar u ah howlgaladooda marka la eego. Turkiga ayaa ciidamada gaarka ee Soomaaliya ee commandoska Gorgor waxa uu siiyay gaadiid dagaal oo ciidanka Turkiga ay ku howlgalaan. gaadiidkaas xitaa ma dhicin Turkiga in uu wadamada kale gacanta uu siiyay uu u gacan geliyo sabab la xiriira in ay gaareen ciidamadaasi waa commandoska Gorgore heer lagu aamini karo. kulan saddex geesood ah oo dhex maray saraakiil ka tirsan taliska guud ee ciidanka militariga Soomaaliya iyo ciidamada commandoska Gorgor iyo Danab oo Mareykanka uu tababaray ayaa ka dhacay Muqdisho iyadoona ugu dambeyn lagu jaangooyay qaabka loo furin karo howlgalladaasi muhiimka ah. ila wareedyo kala duwan ayaa warbaahinta Xuraasi waxay u sheegeen in mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya in ay bilaabeen sidii diiradda ay u saari lahaayeen in la sugo amniga xuduudaha loogana maarmo ciidamada shisheeye. tani waxay qalqal iyo cabsi weyn ku abuurtay wadamo kala duwan oo ka mid ah dalalka ciidamada ay ka joogaan Soomaaliya iyo kuwa dariska la ah. Jamhuuriyadda Djibouti waxay tilmaamtay inay kaalin weyn ka qaadanayso adkeynta dhanka xuduudda iyadoo sheegtay in xuduudda Soomaaliya Djibouti ay la wadaagto in amni ahaan ay la shaqeyn doonto ciidamada la sheegay in ay dowladda federaalka Soomaaliya geynayso deegaanadaasi si amniga guud ay u sugaan. Kenya iyo Itoobiya ayaa kulan gaar ah ka yeeshay qorshaha dhismaha ciidamo gaar ah oo ka shaqeyn doona xadka ama xadbanaadka ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo labadaasi dal iyadoona ujeedka Abiy iyo Ruto yihiin sidii ay u gaari lahaayeen hadafkooda ah in la sameeyo kala furfur siyaasadeed oo mas'uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya ka dhan ah. ila kala duwan ayaa dhanka kale waxa ay warbaahinta Xuraansi u sheegeen in Turkiga uu bilaabay qaadista ciidamo cusub oo Soomaaliya kuwaas oo lagu soo tababari doono xeryo gaar ah oo dalkiisa ku yaala. ciidamadaas ayaa waxay la tababar noqon doonaan askarta Gorgor laakiin waxaa la sheegay in ay markaan ku darsan doonaan khibradaha dhanka badda iyo cirka maadaama dowladda federaalka Soomaaliya ay ku dhawaaqday soo saarka shidaalkeeda ama shidaalka dalka ku jira taasoo keenaysa in Soomaaliya markaan ay fiirsato fursad lacageed oo u muuqan kara. ilaha kala duwan ayaa dhanka kale waxay noo sheegeen in ay socdaan dhaqdhaqaaqyo guud oo la xiriira arrimahan hadda jira iyadoona mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ay tilmaameen in ay socdaan isku dayada guud ee lagu dhisayo ciidanka guud ee Soomaaliya. ilahan muhiimka ayaa dhanka kale waxa ay sheegeen in saacadii u dambeeyay ay socdeen dhaqdhaqaaqyadaasi guud iyadoona saraakiisha iyo mas'uuliyiintuba ay dhinaca kale diiradda ay saareen qaabka ugu fudud ee loo gaari karo hadafka siyaasadeed ee arrintaasi la xiriira. xubin sare oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu dhankiisa tilmaamay in dowladdu ay wado isku dayo kala duwan oo ay ku gaarayso hadafkaasi waxaana mas'uuliyiinta dowladda federaalku ay sheegeen in ay ka hortagayaan xaalad walba iyo wax walba oo arrintaas la xiriira. mas'uuliyiinta dowladda federaalka ayaa dhankooda waxa ay tilmaameen in dhaqdhaqaaqyada iyo isku dayadii ugu dambeeyay ee arrimahaasi ku saabsan lagu gaaray hadafkaasi ah in la xaqiijiyo sidii loo gaari lahaa isku dayadaasi waxaana ay sheegeen
in hadda wixii ka dambeeya dowladdu ay tilmaamtay in ay sameyn doonto dhaqdhaqaaqyadaasi guud. waa sida mas-uuliyiinta iyo ilahan kala duwan ay hadalka u dhigeen. si kastaba turkigu waxa uu wadaa qorshe weyn oo ku aadan in uu garab istaago dhanka iyo dowladda federaalka Soomaaliya, iyadoona xukuumadda Ankara ay tilmaamtay in la soo saari doono shidaalka iyo macdinta kale ee dalka ku jirta, taas oo muhiimad gaar u leh marka la eego isku dayadaasi kala duwan ee arrintaasi la xiriira. saraakiisha iyo mas-uuliyiinta dowladda federaalka ayaa dhankooda waxay tilmaameen in ay wadaan dhaqdhaqaaqyadaasi si loo gaaro hadafkaasi guud ama ujeedadaasi ah in la soo dhigo guud ahaan dhaqdhaqaaqyadaasi arrintaa ku saabsan, oo haddii ay suuro gasho dowladda federaalka Soomaaliya ay diiradda saari doonto in ay ka hortagto wax walba oo ku aadan in isku dayada kala duwan Itoobiya, Kenya, Uganda iyo dalalka kale ay wadaan. wixii warar iyo dhacdooyin arrimaha ka soo kordha baahinteena tan xigta warbaahinta Xuraansi ku daawo. waad ku mahadsan tahay daawashadii la socodka wararkayaga.